waxa magaala madaxda gobolka Sanaag ee Ceergaabo si weyn loogu soo dhaweeyay wafdi ballaaran uu hogaaminayo Caaqil Cali Axmed Maxamuud iyo xildhibaan Maxamed Saalax Cige oo ka tirsan golaha wakiilada Somaliland waxaana wafdidan ujeedka socdaalkoodu salka ku hayay sidii ay uga qayb gali lahaayeen shir beesha ka soo jeeda degmada Maydh iyo waqooyiga gobolka Sanaag uga furmi doona buuraleyda Daalo ay uga qayb gali lahaayeen waxaana wafdidan socdaalkooda ku wehelinayay Professor Maxamed Xalays Odaywa iyo Injineer Cabdirasaaq Abdullaahi wafdidani ayaa lagaga hortagay meel 15 kiiloomitir kaga beegan galbeedka magaalada Ceergaabo kadib markii wafdidani soo gaadhay madasha soo dhaweynta ayaa waxay mid u gacan qaadeen cuqaashi iyo salaadiintii soo dhaweyntooda ka qayb qaatay waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay salaadiin cuqaal iyo waxgarad waxaanu ku soo dhaweynaynaa halkan shirka maxay tahay waayeeladii shirka ka soo qayb galay gobolka Burco injineeradii iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo xildhibaan Maxamed iyo Chief Caaqil Cali soo dhawaada dalkiini baa timaadeen falyatafadal waxaanu soo dhaweynaynaa xildhibaan Maxamed Saalax Cige iyo wafdida uu hogaaminayo ayaanu soo dhaweynaynaa u taaganahay wadada halka waxaan ku soo dhaweynaynaa wafdida ballaaran ee ka timi walaalaha ee ka timi Hargeysa ilaa Burco beesha waqooyiga Sanaag qabsanaysa shirka beelaha Muuse Ismaaciil kamida soo dhaweynaynaa xildhibaan Maxamed Saalax Cige Cali iyo wafdida ballaaran ee uu hogaaminayo ee cuqaashu ku jirto ee guursidu ku jirto waxaanu leenahay soo dhawaada waxaanu soo dhaweynaynaa wafdida ka soo ambabaxday Hargeysa wadiraya oo aad ku soo dhaweynaya caaqilka Cali Maxamed Saalax iyo xildhibaan Maxamed Saalax Cige anaga oo ku soo dhaweynana gacmo furan waxaanu u taaganahay soo dhaweynta xildhibaan Maxamed Saalax Cige iyo Chief Caaqil Cali Maxamed Saalax oo ka soo ambabaxay caasimadda Hargeysa ugu dambeyntii waxa madashaasi soo dhaweynta ka hadlay wafdida oo u mahad celiyay waayeelka iyo waxgaradka soo dhaweyntooda ka qayb qaatay halkan waxaan ka salaamayaa salaadiinta cuqaasha dhalinyarada haweenka iyo dhammaan reer Sanaag sida sharafta ay noo soo dhaweeyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa annaguna waxaanu leenahay soo dhawaada sida noo soo dhaweysay sidaan idin soo dhaweynaynaa waxaan u soconaa shirka nabadeeda ee ka dhacay buurta Daalo insha Allah bidmillaahi kariim waxaan ku sheegaynaa in Ilaahay si khayr la noogu dhameeyo ugu horeysa waxaan mahadnaq aad iyo aad ballaaran u soo celinayaa runtii guddigii qabanqaabada ahaa ee runtii shirkan beesha waqooyiga gobolka Sanaag Jibriil Turwa soo qabanqaabisay nagu soo dhaweysay goobtan runtii aad ka quruxda badan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mar labaadka waxaan u mahad celinayaa beelweynta beesha ee runtii had iyo habeen u heelan guusha iyo gobonnimada iyo runtii barbaraaraha beesha iyo guud ahaanba gobolka Sanaag mar walba u heelan dhul fog baanu ka nimi sida xildhibaanka iyo caaqilkuba sheegeen waxa weeye hadalku waa inoo dambaynayaa shirkeenna dambe haddii alla ka dhigo yaa hadalku wafdidani ayaa loo soo galbiyay dhinaca magaalada Ceergaabo iyadoo oo sharciyada waaweyn ee magaaladaasi la soo dhaxmariyay intaasi kadibna waxa wafdidani la geeyay hotel Sanaag ee magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Axmed Ilsar telefishinka caalamiga Star TV magaalada Ceergaabo